Assalaamu calaykum guys, ku soo dhawaada casharadeen isbuuclaha ah oo aad nagu barateen isbuuc walba haadahan oo kale inaan idin soo gudbino. Cashirkeen isbuucan waxa uu hadlaynaa blood grouping maadaama dal fara badan oo nagu imaado ardayda fara badan oo nagu taxan YouTube channel-keena waxaan u tixgelinay duruufaadkooda. Waxaan cashirka maanta uga hadlaynaa blood grouping. Inta aan cashirka u guda galin ka hor haddaad kanaalkeena ku cusub tahay fadlan like saar aan subscribe ka tagin. Mawduuca maanta waxaan uga hadlaynaa sida shaashada idinkaga muuqato waxaa noo yaalo anti O, anti A, anti B. Waxaan meesha idinkaga muuqdo slide yaalo. Waxaan soo qaadaa dhiigayga isku qasaa. Dhiigayga iyo waxaan isku qasaa iyo tube-ka oo ku jiro mixing aan sameeyaa. Kadib dhiigaan soo qaadaa waxaan ku dhibcinaa meesha ku aadan anti D iyo meesha ku aadan anti B iyo waxaan ku dhibcinaa anti A. 3 drop oo dhiiga qaadanaa. Kadib waxaan sameeynaa tube-kayga waa iska xiraa. Then waxaan soo anti A. Waxaan soo qaatay anti A monoclonal. Baalkii soo qaadanaa waa furaa. Kadib waxaan ku dhibcinaa hal xabo drop, 1 drop of waxaan ku dhibcinaa anti A. Then markaan ku dhibciyo waa xiraa. Waxaan u gudbaa inaan isticmaala aan soo qaadanayo anti B. Anti B soo qaatay. Kadib waxaan ku dhibcinaa anti B meesha ku qoran tahay oo centralka ah. Kadib waxaan soo qaadanaa anti D oo baalkan oo cadka ah oo anti D noogu qoran. Waxaa noogu qoran anti D. Anti D soo qaadanaa IgM iyo IgG-gan. Waa ku dhibcinaa markaan ku dhibciyo waa xiraa. Waxaan soo qaadanaa 3 qor yar baalka stakiinka oo lagu findhicirsado. Qoryaha yar stakiinka soo qaatay mid ka mid ah waxaan ku haweenaa aan ku qasaa anti D ku qasaa. Then waxaan ku xujinaa marka anti D isku qaso oo mixed very well aan sameeyo. Then waxaan ku xujinaa inaan isku qaso anti B. Anti B waxaan isku qasaa iyo baalka qoriga isku qasaa. Anti D iyo waxaan isku qasaa iyo dhiigayga. Anti B iyo dhiigayga isku qasaa. Mar alla markaa mixing well aan sameeyo. Then waxaan u gudbaa anti A. Anti A iyo waxaan isku qasay blood-kayga isku qasay. Markaa si fiican oo qurux badan isugu qaso. Then waxaan sugaa 1 to 3 minutes. Ilaa 1 to 3 minutes then waxaa ii soo baxay result-kan shaashada kaaga muuqdo. Result-kayga waxa waaye AB+ waaye. Dhiigayga waa ujeedaa wuxuu ii sameeyay AB+. Waxyaabahan shaashada kaaga muuqdan haddaa A+ rabtid waa kana. Haddaa O+ rabtid waa kana. Haddaa B+ rabtid iyo B negative rabtid waa kana. Haddaa rabtid O antigen ama AB positive haddaa rabtid waa kana. Waxyaabaha adiga u baahan tahay dhan qaabkan loo baaraa. Qaabkan result-kan ku siinaa. O positive waa ka shaashada kaaga muuqdo. Qaabkan lagu baaraa oo aad u sahlan. Si aan muuqaaladan ka sii badan u soo gelino fadlan inaan dhiirigeliya oo nagu dhiirigeliya inaad subscribe noo dhahdaan, share na nagu caawiya si ay u arkaan ardayda tirada badan ee barato shaybaarka si ay ugu faa'iideystaan muuqaaladan. Fadlan haddaad tahay qof aanan aqoonin dhiiggiisa noocuu yahay isku day inaad baratid nooca dhiigaaga si barito adoo accident ku dhacday dhiigaaga noociisa lagu murmin. waana mahadsantahay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.